Assalaamu calaykum. Dhammaantiin waxaynu u wada dabaaldegaynaa ama u wada riyaaqsannahay dhalashada sanadka cusub ee 2021. Haddaba maxay noqon kartaa natiijada ka dhalan karta inaad la dabaaldegto ama u dabaaldegto magacyada sanamyada gaaladu caabudo? Sidoo kale maxay ka qabtaa diinteena suubani inaad la ciido gaalada, gaar ahaan kuwa ciida sanadka cusub? Haddaba si aad xog dhammaystiran uga hesho muuqaalkan, fadlan like saar, siina share gare si uu u gaadho asxaab badan oo u baahan inay wax ka ogaadaan xukunka ciidaha Christmas-ka. Mahadsanid. Weynaynta iyo dabaaldegyada la sameeyo sanad waliba oo cusub ama dhammaadka bisha loo yaqaano December waxaa gaar u leh gaalada maxaa yeelay waxay ugu jirtaa meelaha ay nagu jiraan labada ciidood ee sharciga Islaamku inoo jideeyay. Haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa dabaaldegga sanad walba oo cusub? Magacyada ay leeyihiin dhammaan 12 bilood ee milaadigu mid walba waxay astaan u tahay magacyada sanamyada ay caabudaan ama ilaahyada gaaladu caabudaan. Waana sababta keentay in si gaar ah loogu dabaaldego sanad walba oo bilaabma. Marka laga yimaado gaalada iyo waxyaalaha ay walaaqdaan, ka muslimaha waxaa jira dad Islaam oo u dabaaldega lacagna ku bixiya dhalashada sanad kasta oo cusub oo milaadiya, iyagoo soo sheergaraya qoraalada iyo suurada gaaladu samaysay. Si kastaba ha ahaatee, waxa hubaal ah in culimada Islaamku ka digaan sanad walba ay sheegaan inay xaraan tahay in loo dabaaldegaa sanad kasta oo cusub. Sidoo kale waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay tirada bilaha Ilaahay Quraanka ku sheegay waa 12 bilood, waana bilaha hijriga. Aayadani waxay daliil u tahay in kalendarka gaaladu samaysteen aysan haba yaraatee waxba lagu tirsan karin, maadaama ay ku dabaaldegaan in sanad waliba Ilaahay u dhasho. Subxaanallah. iyagu ciidaheen iyo shacairteen iyo dhaqankeena ma weyneeyaan sideen nagu u weyneynaa yana waa cajiib wey kol haddaan iyagii weyneyneen waxa weeye adiguna inaad weynaysa maaha bal haddii xataa iyagu weyneeyaan adiga waa laga mamnuuca. dhinaca shanaad waxa weeye qofka raaca wuxuu noqonayaa qof ku dayday. nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum.